duhur wanaagsan dhammaantiin dagaalka Israa'iil iyo Iran oo wajh cusub yeeshay Mareykanka ayaa duqeymo culus iyo duulaan halis ah ku qaaday saddex goobood oo xarumaha nuclear-ka Iran lagu keydiyo xarumaha sida gaarka ay u beegsatay Mareykanka ayaa ah xarunta Fardo, Natanz iyo Isfahan. Mareykanka waxay adeegsadeen hubka culus oo lagu magacaabo GPU-57 oo dhulka hoos u gali kara 200 feet kaasoo ah ugu yaraan 13 tan waxaana la isticmaalay diyaaradda B2 oo ah diyaaradaha ay Mareykanka ku dhaartaan. Trump ayaa bartiisa X ku sheegay waxaan dhameystirnay weerarkii aan ku qaadnay saddexda goobood ee nuclear-ka Iran oo ay ku jiraan Fardo, Natanz iyo Isfahan. Dhammaan diyaaradaha aan isticmaalnay ayaa hadda ka baxsan hawada Iran. Culays buuxo oo bam ah ayaa lagu tuuray goobta koowaad ee Fardo. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa u mahadceliyay dowladda Mareykanka wuxuuna intaasi ku daray in markay awood timaado ay nabad timaado. Hadda aan idin faafaahiyay saddexda goobood oo ay Mareykanka ay ka duqeeyeen Iran waxa ay kala yihiin. Fardo waa meesha lagu farsameeyo hubka nuclear-ka. Waa xarun si aad ah loo ilaaliyo oo dhulka hoostiisa ah. Waa meel aad ugu jirta dhulka hoostiisa. Isfahan waa xarun cilmi baaris ah oo muhiim u ah barnaamijka nuclear-ka. Xarunta Natanzana waa xarumaha ugu weyn ee uranium-ka lagu keydiyo. Balse waxaa la sheegayaa in ay jiraan xarumo kale oo ay Israa'iil weli ogaanin oo ay weliba ilaalo gaar ah ka hayaan ciidamada Ruushka. Balse madaxa xarunta nidaamka badbaadada nuclear-ka Iran ayaa sheegaya in kastoo ay jiraan falal dambiyeedyadii subaxnimadii hore ee saaka lagu weeraray xarumaha nuclear-ka iyadoo ay ugu wacan tahay taxadaro iyo tallaabooyin hore loo qaaday in hubka nuclear-ka laga qaaday goobahaasi maalmo ka hor. dhanka kale ku-xigeenka agaasimaha siyaasadda ee warbaahinta dowladda Iran Xasan Cabeedi ayaa sheegay in Iran ay faarujisay saddexdani goobood ee nuclear-ka muddo ka hor isagoo ka soo muuqday TV-ga ay dowladda maamusho. Wuxuu sheegay in Iran aysan la kulmin jug weyn sababtoo ah agabka ayaa mar hore laga saaray. Iran oo careysan ayaa duqeymo kii ugu cuslaa ku qaaday magaalada Haifa ee dalka Israa'iil taasoo ay jawaab uga dhigayso duulaanka saaka ay soo qaaday Mareykanka. Hogaamiyaha ruuxiga Ayatollah Khomeini ayaa sheegay in Iran hadda laga bilaabo ay beegsan doonto muwaadin kasta oo Mareykan ah.